بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا Somali Medical Consultant Center SMCC. إن شاء الله maanta waxaa ka hadli doonaa shaqo noocee ah ay cuntada jirkeena u qabataa. Cunadu waxa ay muhiim u tahay nolosha aadanaha. Haddii aad rabto in uu jirkaada helo caafimaad iyo firfircooni joogto ah, waa inaad cuntaa cunno dheellitiran. Inta aadan cunada cunin ka hor, waa muhiim in aan hubino in ay cunadu tahay mid dheellitiran. Sidoo kale, waa in ay tahay mid laga ilaaliyo bakteeriyada. Wax ka ogow shaqada cunada ay u qabato jirkeena. Kow, cunadu waxa ay ka qayb qaadataa koritaanka jirka. Labo, cunadu waxa ay kor u qaadaa shaqada maskaxda. Sidoo kale, waxa ay xoojisaa xasuusta. Saddex, waxa ay jirka u tahay tabar energy. Tabartaas oo lagu socon lahaa, tabartii wax lagu baran lahaa iyo tabartii lagu shaqayn lahaa. Afar, waxa ay cunada jirka u samaysaa unugyo cusub. Shan, cunadu waxa ay xoojisaa difaaca jirka. Sidoo kale, waxa ay ka qayb qaadataa ka hortagga cudurka jirka soo weeraro. Lix, cunadu waxa ay horumarisaa shaqada murqaha. Toddobo, cunadu waxa ay xoojisaa lafaha iyo ilkaha. Sideed, cunadu waxa ay ka qayb qaadataa soo kabsashada dhaawac qofka gaaro. Cunadu waxa ay horumarisaa qaab shaqaynta xubnaha muhiimka u ah nolosha sida wadnaha, beerka, kilyaha.